markii uu madaxweynihii hore ee Nigeria Sami Abacha xaday balaayin dollar uuna dhintay ka hor inta uusan isticmaalin lacagtaasi waxay arrintu ku biyo shubatay in laga howlgeliyo qareemo caalami ah ugaarsigan waxa uu socday 10 sano ninkii loo kireystay in lacagtaasi uu dib u soo celiyo ayaa warbaahinta u sheegay in shaqadaasi ay ku qaadatay noloshiisa oo dhan bishii September ee sanadkii 1999 garyaqaan Enrico Monfrini oo u dhashay dalka Switzerland waxa uu qabtay telefoon laga soo wacay oo bedeli doona noloshiisa 20 sano ee xigay wuxuu soo wacay habeen saqdhexe ah waxaana uu iga codsaday inaan hotelkiisa ugu iman karo oo uu hayo arrimo muhiim ah waxaanan ku dhahay xoogaa waa xilli dambe laakiin haye qofka telefoonka ka soo wacay waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Nigeria Master Monfrini waxa uu sheegay in sarkaalka la soo hadlay oo uu soo diray madaxweynihii xilligaasi ee dalka Nigeria Obasanjo uuna ka dalbaday in uu u shaqaalaysiiyo sidii uu dib u soo celin lahaa lacagtii uu xaday Abacha oo Nigeria xukumayay laga soo bilaabo 1993 ilaa laga gaaro xilligii uu geeriyooday oo ahayd 1998 maadaama uu ahaa qareen waxa uu macaamiil ku lahaa gudaha Nigeria tan iyo sanadkii 1980 shirkado dhowr ayuuna la soo shaqeeyay waxa uu tuhunsan yahay in macaamiishii uu shaqooyinka u soo qabtay ay amaaneen shaqadiisii taasna ay dhaxal siisay in loo soo xusho qareennimada arrinkan waxa uu weydiiyay ma heli kartaa lacagtaas oo waliba ma hor istaagi kartaa in la isticmaalo lacagta ma ka shaqayn kartaa in lacagtaasi dib loo soo celiyo oo lagu soo celiyo gudaha dalka Nigeria waxaan dhahay haa laakiin xaqiiqdii wax badan kama aanan ogeyn shaqada xilligaasi waxaanan ku qasbanaa inaan si degdeg ah u fahmo marka sidaasi ayaan sameeyay si uu shaqada u bilaabo booliiska Nigeria ayaa ku wareejiyay xog ku saabsan dhowr akoon oo laga xiray bangiyo ku yaalay Switzerland kuwaas oo muuqday in ay ku jirtay qayb kamid ah lacagta ay xadeen Abacha iyo kooxdiisa sida uu Master Monfrini buugga uu daabacay uu ku qoray waxa uu sheegay in baadhitaankii hordhaca ahaa ay sameeyeen booliiska bishii November 1998 lagu ogaaday in Abacha iyo xulafadiisa ay xadeen lacag ka badan 1.5 bilyan oo dollar una dhiganta lacag gaaraysa 1.1 bilyan oo giniga sterling ah mid kamid ah qaababta lacagta lagu xadeeyay waxa uu ahaa hanaan gaar ah oo la diyaariyay Abacha ayaa qof la taliyaashiisa kamid ah u sheegay in uu soo dirsado codsi uu uga dalbanayo lacag uu ku bixiyo sidii amnigiisa loo sugi lahaa kadib codsigaasi ayuu saxiixay qofka la taliyaha ahna waxa uu lacagta oo cadaan ka qaadanayay bangiga dhexe ee dawladda markaasi kadib qofka la taliyaha ah waxa uu inta badan lacagtaasi geyn jiray guriga Abacha qaar kamid ah lacagtaasi xitaa waxa lagu qaaday dollar waxaana lagu reeyay gaari xamuula sida uu qoray Master Monfrini habkaasi waxa uu ahaa hal nooc oo Abacha iyo dadkii la shaqeynayay lacag badan ku qaadanayeen hababka kale waxa kamid ahaa qandaraasyada dawladda ee la siiyo dad saaxiibo la madaxweynaha iyadoo lacag badan tan qandaraaska la qaado inta kalena jeebka lagu shubto sidoo kale shirkadaha ajnabiga ah ayaa laga dalban jiray in ay laaluush aad u badan bixiyaan si ay wadanka gudihiisa uga howlgalaan arrintan waxay socotay muddo qiyaasii 3 sano ah ilaa markii dambe ay hal mar xaaladdu isu bedesho kadib geeridii lama filaanka ahayd ee ku timid Abacha isagoo oo 54 sano jira waxaana uu geeriyooday 8 bishii June sanadkii 1998 macadda in uu wadnuhu istaagay amaba la sumeeyay maadaama aan wax baaritaan lagu sameyn meydkiisa sida uu dhakhtarkiisa gaarka u sheegay warbaahinta Abacha waxa uu dhintay isagoo aan wali isticmaalin balaayinkii lacagta ahayd ee uu lunsaday dhowr bangi oo kaliya ayaana laga raaci karay halka ay lacagtaasi ku maqnayd xogta muujinaysa qaabka lacagaha loo xareeyay ayaan ka helay raadka bangiyo kale ayuu yiri Master Monfrini isagoo macluumaadkaasi wata ayuu arrinkan la kaashaday xeer ilaalinta Switzerland markaas kadibna howshiisa ayaa u hirgashay Master Monfrini waxa uu ku guuleystay doodiisa ku saabsanayd in qoyska Abacha iyo xulafadiisu ay samaysteen hay'ad dambiile ah talaabadaasi waxa ay u furtay waddan muhiim ah sababtoo ah waxa ay suura gelisay in booliiska ay la tacaalaan bangiyadii laga shakisanaa taasoo keentay in lacagihii Abacha iyo xulafadiisii ay lunsadeen ee Switzerland bangiyadii ku yaala la geeyay gabi ahaanba dib loogu soo celiyo dalka Nigeria